Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax xooggan oo saaka ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan iridka hore ee shirkadda diyaaradaha ee Jubilee Airways xarun ay ku leedahay garoonka Aadan Cadde afaafkiisa hore wadada xiriirisa kiiloomitir 4 iyo weliba madaarka Muqdisho. Qaraxa ayaa gaaray waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo, waxaana warar kala duwan oo soo baxaya ay sheegayaan in qaraxaasi lala eegtay gaadiid kolonyo ah oo ay la socdeen wafdi ka socday Qaramada Midoobay oo halkaasi marayay. Warar kale oo hadlay ayaa sheegaya in gaariga qarxay ay ka shakiyeen ciidamada dowladda federaalka, waxaana markii ay damceen in ay baaritaan ku sameeyaan durbaba halkaasi ku qarxay gaarigaasi oo nuuciisu ahaa Nooha, isla markaana uu watay wiil dhalinyaro ah. Afhayeenka laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay fashiliyeen gaariga waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo la doonayay in lagu weeraro gudaha garoonka Aadan Cabdulle Cismaan. Inta la xaqiijiyey, 6 qof oo ku jira taliyihii ciidamada nabad sugidda degmada Wadajir ayaa qaraxaasi ku dhintay, waxaana sidoo kale jira dhaawacyo soo gaaray ciidamo ka tirsan dowladda iyo dad rayid ah oo ka ag dhowaa halka uu qaraxu ka dhacay. Dadka waxyeellada uu soo gaarsiiyey qaraxani ayaa la sheegayaa in ay ku jiraan dad maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, kuwa oo ka yimid qurbaha, isla markaana la doonayay in nabadda ka soo bixnaatay Muqdisho ay damaashaadkooda qayb ka qaataan, balse aysan u suurtagelin. Qaraxa ka dhacay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ayaa yimid xilli garoonka diyaaradaha ee Muqdisho uu ka dhoofiyey madaxweynaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno ka tirsan dowladda oo Baydhabo ugu socday ka qaybgalka caleemo-saarka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan. Mas'uuliyadda qaraxani ayaa waxaa sheegatay xarakada Al-Shabaab. Afhayeenka dhinaca howlgallada u qaabilsan xarakada Al-Shabaab Sheekh Cabdicasiis Abu Muscab oo qaraxaasi kadib la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay qaraxaasi ku qaarajiyeen mas'uuliyiin calooshood u shaqaystayaal uu ku tilmaamay uu sheegay ajnabi ku sugan gudaha dalka Soomaaliya, iyadoona sidoo kale dhowaan afhayeenka xarakada Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage Cali Dheere warbixin uu soo saaray uu ku sheegay in dagaalada ka socda gudaha dalka Soomaaliya iyo weliba gudaha dalka Kenyaba aysan istaagi doonin inta ajaanib ay ku sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya. waxayna ku dhiiratay in dadka muslimiinta ah ay waxa weeye dhibaatayso haday ahaan lahayd naftooda iyo dalkooda iyo dadkooda iyo hantidooda intaba inay dhibaatayso iyo maxay muqadasaadkoodii ba isku dayday. taa waxay keentay marka mujaahidiintuna inay go-aan qaataana inay ka aarsadaan oo waxa weye iyaguna waxa weeye intii ay u dhigtoo kaleeto ay u dhibaan dadka muslimiinta ah ay nabad galaan oo waxa weeye hantidooda iyo muqadasaadkooda iyo diinkooda iyo dalkooduba aad fariha ka qaadaan. waxaan ilaahay ballan kula gelinaa tabaaraka watacaala inta qof muslima aad geeska afrika ku dulminaysaan oo waxa weeye taaka dhul muslimiin ay leeyahay aad haysataan, waxa weeye ama iscasila ama ha iscasilinina, dadkiina dagaal dhiigu ka joogsan maayo, magaalooyinkiinu nabad ma noqon doonaan, ee dhibaatada iyo silaca aad ku jirtaan iscasilaadda waa idinku socon doontaa biidnillahi tabaaraka watacaala.